السلام عليكم أصحابتا halkan waa channelka guusha adduunka anu waxaan walaalkii Nuurudiin fadlan subscribe saar kanaalka maanta waxaan idin wadnaa cashir ku saabsan sida muuqaalka codka looga qaado loona saarto mid kale haddii aad u baahan tahay in aad muuqaal cod ka qaadatid mid kalena saartid ama sidiisaba uga leexatid waxaad la soo degaysaa applicationka KineMaster kadib markaad KineMaster la soo degtid KineMaster setan ay kugu soo furmaydaa sida marka kugu soo furmato halkan ayaa taabanaysaa halkan marka aad taabatid waxaad ka dooranaysaa Enter Projector marka aad ka dooratid geenaysaa halkan marka halkan ku geyso waxaad ka dooranaysaa halkan meesha ay ku qoran tahay media kadib halkan waxaad ka dooranaysaa waxaad ka raadsanaysaa qaanadii kugu jiray muuqaalka codka ka qaadi rabtid hadda anikan ayaan ku tusaaleynayaa marka uu halkan kaga soo baxo calaamada saxda ayaa taabanaysaa kadib muuqaalka marka uu halkan kugu soo baxo hadda aniga tusaale ahaan waa iska jaraya intaan uu dheer yahay intaas markaan iska jaray halkan waa daaraya oo u jeedin inuu cod leeyahay muuqaalkan waxaad taabanaysaa muuqaalka korkiisa marka aad taabtid wuxuu kuu soo bixinayaa setan kadib halkaas ayaad ka dooranaysaa kadib halkan ayaad boqolkii eber geynaysaa kadib sax ayaa saaraysaa wakaas hadda muuqaalkii codkii waa ka haray oo waa muuqaalkii oo keligiisa kadib halkaas ayaad ka seefanaysaa muuqaalka kadib halkan imbiga ayaa laga badiyaa hadda imbiga waa iska yareynaysaa kadib halkaas ayaa ka seefaysaa wax yar ayuu seefayaa kadib hadda uu ii saafay aniga halkaas ayaa taabanaysaa marka halkaas aad taabatid oo wax yar dib u noqotid marka halkaas aad taabatid haddana sidii kale usoo gelaysaa Enter Projector ayaa leedahay kadib hadda media ayaa leedahay hadda background ayaan soo qaadanaynaa si aan muuqaalka saarna uga yeelno background marka halkan aad soo dhigatid halkaas ayaa taabanaysaa kadib halkaas ayaa kasii dooranaysaa haddii uusan halkaas lahayn KineMasterkaada waxaad kala soo degi kartaa description hoostiisa ayaan kuu soo dhigayaa KineMasterka aan hadda isticmaalayo halkaas kasoo dhowd garayso kadib backgroundka waa la ekeynaysaa kalekeydid hadda waxaan isku ekeeyaa backgroundka muuqaalka iyo backgroundkayga aan hadda soo qaatay markaas isku ekeydid kadib kana waa soo weyneynaysaa marka soo weyneydid hadda muuqaalkan cod ma lahan waxa waaye waa muuqaalkii oo keliya kadib hadda waxaan rabaa inaan cod saarto waxaan ku saaranayaa halkan ayaan taabanayaa asaan duubayaa codka aan rabo haddii aan cod ii duuban saaran rabana meesha hadda aan taabtay meesha dhinaca kale ka xigto ayaa taabanaysaa kadib markaas halkaas ayaad ka raadsanaysaa codkii kuu duubnaay hadda muuqaalkan codka waa ku dhammaystiray aan intuso sida oo codka u yeelanaya marka stop ayaa leedahay stop aad tiraahdid haddana halkaas ayaa taabanaysaa codka ayaa dheereynaysaa hadduu kugu gaaban yahay halkaas ayaa tig saaraysaa hadda muuqaalka waa kaas cod ayuu yeeshay muuqaalka saas ayuu cod ku yeeshay saas ayaa muuqaalka cod u saaran kartaa hadda marka sidii markii hore aan u saafnay oo kale ayaan u seefaynaa aniga Nuurudiin oo idin leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.